السلام عليكم. كينان مجلس أردم استراني وكينان عبدي ورسمه وحو آمين سيه الدين تسلامك إريق كينان أياه معني سمرك اللغة إنكريس اللو إيغو ترايفل oo ah safar ama socoto Keenan waxa uu dhashay sanadkii 1987 waxa uu ku dhashay dalka Soomaaliya gobolka Banaadir magaalo madaxda Muqdisho gaar ahaan degmada caanka ah Wardhiigley Keenan waxa uu dalka Soomaaliya ka tagay sanadkii 1991 kadib markii ay meesha ka baxday maamulkii dawladda dhexe ee Soomaaliya Keenan waxa uu haystaa dhalashada Canada waa Soomaaliyaan Kanadiyaan ah Keenan waxa uu qaaday heesaha loo yaqaan raabka Keenan waxa uu aad uga duwan yahay fanaaniinta Soomaaliyeed marka sidaas leeyahay waxaan ula jeedaa xagga taageeraha oo waxa Keenan laga jecel yahay adduunka oo dhan waxa uu ku heesaa afkiina hooyo ka sokow afka Ingiriisiga Keenan waa nin wadani runtii jecelna dalkiisa hooyo sida uu cadaatay dunida kadib markii uu kor u taagay astaanta dalkeena hooyo habeenkii la furay koobka adduunka heesaha Keenan waxa laga dheehan karaa Soomaali badan wuxuuna dhaqso u noqday nin laga yaqaan adduunka Keenan oo dunida ugu jira dalka Soomaaliya Keenan waxa uu sheegay inuu soo qaadi doono sanadkan heesa micno iyo mirti ay ku dheehan tahay isagoo sheegay in ay heesiis noqon doonaan kuwa laga heeso meelo badan oo ka mid ah adduunka Keenan ma qaado heesaha Ingiriiska kaliya xitaa wuxuu soo qaaday heesaha Soomaaliga Keenan waxa uu magac weyn u soo hoyay dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan maalintii la furay koobka kubadda cagta ee adduunka FIFA World Cup 2010 ee lagu qabtay Koonfur Afrika wuxuu ka qaaday hees la magac baxday Waving Flag Keenan ayaa sheegay mar ay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da wareystay markuu alifay heestan uu niyadda ku hayay Soomaaliya Keenan ayaa hibo u leh luqeynta alifida iyo laxamaynta heesaha taas oo ah inuu ku heeso luqadaha caalamiga ee la isla fahmay adduunka sida luqadda Ingiriisiga Keenan ayaa u muuqday inuu geli doono booskii uu baneeyay raabarkii caanka ahaa ee King of Pop Michael Jackson